بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى جل شأنه إلهي وحليه جل شلاله إليه إلى الله إلهي حقي سأنبا يرد لو عليا علم الساعة ساعد أقال كذا علم كذا إلهي أنبا دب لو عليا وإلهي سبحانه وتعالى aayadan wuxuu inoogu sheegi aayadihiisa kowniga qaybo ka mid ah gaar ahaan cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala sida uu ballaaran yahay. ilaahay wuxuu inoo sheegay cilmiga saacaddu inay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay uu la gaar noqday cilmigaas. wamaa takhruju ma soo baxdo min thamaraatin miro sooma baxaan. min thamaraatintu waa faacilkii takhruju, mintaasaa lagu siyaadiyey. وما تخرج مصوبحان من ثمرات أي ثمرات مره صوبحان من أكمامها مرها دبولدو دا أي كود دبوليهين وفيدي يوحي أي كوهر ريسنايين أردن مره كما صوبحان. وما تحمل من حنبارته من أنثى هوين يددق أور محنبارته ولا تضع أوركاس نمد جسه أو مدشه إلا بعلمه إلهي علمه سماهن سبحانه وتعالى. أرمها صورنا وحين تسنايان علمك إلهي سبحانه وتعالى سيدو بلارن يهي علمك إلهي سيدو الدقيق يهي علمك إلهي سيدو محيط يهي ووحو البابا إلهي الله صعده سبحانه وتعالى. تسالين إلهي النوص شاقي تسالين كوحاكم إذا مره galalkooda kama soo baxaan marka ay soo dhalanayaan ilaa cilmigiisa bay ku soo baxaan mirahaas. haweenay uur qaadaahi ma jirto ilaa bicilmihi, haweenay dhalaysaahi ma jirto ilaa bicilmihi, ilaahay cilmigiisa maahan subxaanahu wa tacaala. arrimahan marka waa tusaalooyin mooye cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala intaas uu ka ballaaran yahay. wa yowma maalin yunaadiihim kuwii mujrimiinta ahaa oo gaalada ahaa oo ilaahay shariiga u yeelay maalinta ilaahay uu u dhawaaqaayo oo ilaahay uu leeyahay ayna shurakadaydii aaway kuwii aad dhinac dhigi jirteen oo dhihi jirteen ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada ay shirka kula yihiin aaway maanta may wax idin qabtaan may wax idin taraan maadaama xilligii aad ugu baahida badnaydeen aad ku jirtaan. qaaluu waxay yidhaahaan kuwii gaalada ahay mujrimiinta ahaa aadannaaka ilaahow waan ku ogeysiinay maa minnaa annaga xaggeenna min shahiidin ay shahiidun ruux markaas qiri kara anna laka shariikan inaad shariig iska leedahay ruux qiri kara inuusan naga mid ahayn ilaahow waan ku ogeysiinay. ruux annaga naga mida oo qiri kara shariig inaad leedahay oo ilaah kale uu jiro ruux kelimadaa maanta ku dhawaaqi kara ilaahow naguma jiro saasay leeyihin. waa xilli marka fursaddii ay ka dhammaatay, waa xilli ogaalkaasi uusan waxba u faa'iidaynaynin ayay xaqiiqadii ogaadeen. qaaluu waxay yidhaahaan aadannaaka waan ku ogeysiinay rabbiyow maa minnaa annaga xaggeenna inuusan ka mid ahayn min shahiidin ay shahiidun ruux qiri kara anna laka shariikan inaad shariig iska leedahay oo wax ilaahnimada iyo cibaadada shirka kugula ah inay jiraan ruux qiri karaahi maanta naguma jiro. xaqaa'iqii wuu caddaaday waana fadeexownay. ilaahay wuxuu yidhi subxaana wadalla canhum kuwaa mujrimiinta ah xaggooda waxaa ka lumay maa shaygii ayaa ka lumay shaygaasoo kaanuu ay ahaan jireen yadcuuna inay caabudaan min qablu horay ay u caabudi jireen. waxyaalihii ilaahay kayrkiisa ay caabudi jireen adduunyada inta ay joogeen way ka lumeenoo waxba uma qaban karaan. wadannuu waxay ogaadeen oo ay yaqiinsadeen. dannigan hadda waxaa loola jeedaa bimacna alyaqiin
wadannuu waxay ogaadeen markii qiyaamaha ay tageen maa lahum ayaga min maxiisin ay maxiisun fakasho inaysan u sugnaanin carar iyo meel ay ku fakadaan iyo meel ay ku cararaan inaysan maanta haysanin ayay ogaadeen oo ay yaqiiniyeen marka hadalkaas waxaa ka keenaya inay shurakadoodii ay ku kufriyaan waxyaalihii ilaahay ay dhinac dhigi jireen subxaanahu wa tacaala inay beeniyaan oo ay inkiraan waxaa ku kallifaya meelay u fakadaan iyo meelay u cararaan ayay waayeen oo xaqiiqadii ayay soo taabteen ilaahay wuxuu yidhi subxaana laa yas'amu linsaanu insaanku kama daalo min ducaa'i alkhayri khayrka tuugmadiisa kama daalo mar walba inuu ilaahay ka baryayo khayr insaanku kama daalo caafimaadkii risqigii waasica ahaa in ilaahay uu ka baryayo mar walbaba insaanku kama daalo wain massahu insaanka noocaasa oo khayrka mar walbaba ilaahay weydiisanaya asharu shartu haddii ay taabato fa ya'uusun fa huwa isagu ya'uusun mid quusanaya wey min raxmatillaah raxmadda ilaahay mid ka quusanayow qanuudun mid quusatiinimo badan wey min ijaabati ducaa ducada in laga jawaabo oo ilaahay ducadiisa uu ka ajiibana mid aad uga quusta wey ilaahay aayaddan wuxuu inoogu sheegi subxaanahu wa tacaala qofka kaafirka ah ee gaalka ah ee ilaahay beeniyey subxaanahu wa tacaala dhaqankiisa iyo habka uu u dhaqmo iyo inuu ka fog yahay dhaqanka ilaahay uu jecel yahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo soo gelaya qof walba ee mu'min ee dhaqankaas gaalada oo kala yeelatay ayaa aayadda soo gelaya walidaalika insaankan xun ilaahay wuxuu ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala in mar walbaba ilaahay uu weydiisto caafimaadka risqiga khayrkaas uu mar walbaba ilaahay weydiisanayo laakiin markii dhibaata ay la soo deristo oo cudur uu la soo derso abaaru ay ku dhacaan wuxuu la qaabilaa markaas dhibaatadaas soo qaabishay ya'siyuu la qaabilaa wuu quustaa oo raxmadda ilaahay uu ka quustaa wuxuu leeyahay weligayba ka bixi maayo xaaladdan hadda aan ku dhacay ee dhibaatada ah laakiin qofka muuminka sifaadka lagu yaqaano iyo tilmaamaha lagu yaqaano ilaahay uu jecel yahay waxaa weeye markii nicmada xagga ilaahay ka soo wajahdo inuu la qaabilo shukri oo ilaahay uga shukriyo subxaanahu wa tacaala xaalad dhibaataa markay soo wajahdana inuu ilaahay qadartiisa iyo qadihiisa uu raalli ku noqdo oo uu sabro ducadana uu badiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu rajeeyo mar uun kurbadan inuu ilaahay ka bixin doono subxaanahu wa tacaala insaankii xumaa tilmaamihiisuu ilaahay noo wadaahay ilaahay wuxuu yidhi subxaana walain adaqnaahu insaankaas xun haddaannu u dhadhansiino raxmata naxariistaasoo minnaa annaga xaggeenna ka ahaatay caafimaadkii aan siino irsaaqadda aannu u waasicinno min bacdi daraa'a xaalad asaga dhibaysay ka bacdi haddaan naxariis u dhadhansiino xaaladdaas dhibaysay oo massadhu insaankii taabatay xaalad dhib lahoo taabtay xaaladdaa ka bacdi haddaan naxariis insaankaa u dhadhansiino layaquulanna yidhaahee haadaa midka naciimka ah barwaaqadan ii timid nicmadan ii timid lii aniga unbay ii sugnaatay oo waa xaq ilaahay anigu aan ku lahaa marka xaq ilaahay aan ku lahaa weeyo ilaahay iiga jawaabay waa xuquuq ewelba anigu aan xaq u lahaa kelimadaa foosha xunu ku hadla wuxuuba u maleeyaaba haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u dhadhansiiyo oo caafimaadka la siiyo oo risqiga loo waasiciyo xaq inuu ilaahay ugu lahay inuu ilaahayba xaq uu ku lahay uu siiyey oo meeshii laga rabay ilaahay inuu mahad celiyo ilaahay uu ku shukriyo maba ku shukrinayo wuxuu u haystaa dayn ilaahay uu ku lahayo ilaahay uu guday dayn ilaahay isagu uu ku lahaa oo ilaahay uu guday taasuba u haystaa maxaa yeelay waa mujrim waa kaafir wamaa adunnu xumaatadiisii ilaahay noo sheegay qofkan insaanka ah wuxuu leeyahay wamaa adunnu anigu u malayn maayo assaacata saacadda qiyaamaha qaa'imatan mid qumaysa istaagaysaba inay tahay saasuu u qooqa raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu helo wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisii iyo qiyaamadii iyo xisaabkii iyo bacfigii iyo nushuurkii arrimahaasoo dhan uu beeniyaa wamaa adunnu anigu u malayn maayuu yidhaahaa saacata saacadda qiyaamaha
qaa'imatan mid istaagaysa oo kacaysaba inay tahay ma u malaynaayo wala in rujictu haddii dib la iigu celiyo ilaa rabbii xagga rabbigay haddii dib la iigu celiyo oo wuxuu leeyahay calaa wajhi alfardi waataqdiir lacalla haddii la iska qadaro aakhiraba jirto laysoo saaro intaan dhinto markaa kabacdi rabbigay aan la kulmo la iska qadaro ilaa isagu qiyaamo ma rumaysna oo horuu qiyaamihii u beeniyey wuxuu leeyahay xagga rabbi haddii dib la iigu celiyo calaa wajhi alfardi wataqdiir lacalla kaba dhigba haddii laysoo nooleeyo inna lii aniga waxaa ii sugnaaday cindahu ilaahay agtiisa iigu sugnaaday lal xusnaa xaaladdii wanaagga badnayd oo jannada ah kaba dhigba waxa mu'miniintu ay aaminsan yihiin ama muslimiintu ay aaminsan yihiin oo inuu bacthi jiro oo qiyaamo uu jiro lacalla haddii taasi la qadaro inay saxiix tahay ilaahay jannaan ku leeyahay oo jannaan ka heli rabbi subxaanahu wa tacaala sida adduunyadanba ilaahay naciimkan iyo raxmaddan ilaahay uu ii siiyey ayaa aakhirana ilaahay jannadiisa uu igu deeqi saasuu leeyahay oo wuxuu u maleeyaa mar walbaba aakhirana ilaahay subxaanahu wa tacaala xaq inuu ugu leeyahay inuu ilaahay janno uu siiyo adduunyada intuu joogana ilaahay xaq uu ugu leeyahay inuu ilaahay raxmad siiyo subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi subxaana falanunabbi'anna waan uga warramaynaa aladiina kuwii kafaruu gaaloobo ilaahay ku jisaaray bimaa shay ayaan uga warbixin doonaa shaygaasoo camiluu ay sameeyeen acmaashan foosha xun inkiraadda bacfigii ay inkireen nicmadii ilaahay iyo kufri ay kula qaabileen arrimahaasoo dhan warbixinteeda waan siin doonaa yacni waan ka abaalmarin doonaa ha loola jeeda sidan weeye abaalmarinta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka abaalmarinayo kuwa hadalladaa foosha xun ku hadlay ilaahay wuxuu yidhi walanudiiqannahum waan u dhadhansiin doonaa min cadaabin cadaab xaggiisaan u dhadhansiin doonaa cadaabkaasoo qaliidin ee qiro weyn cadaab haddii lacalla jirmi laga dhigi lahaa wax qiro weyn oo culus noqon lahaa cadaabkaas culus ayaanu u dhadhansiin doonaa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waidaa wakhtigii ancamnaa aan u nicmayno cala alinsaani ruuxa bini aadamkaa markaan u nicmayno acrada wuu sii jeestaa canillaahi ilaahay xaggiisa iyo wa can daacatihi ilaahay iyo daacadiisa waa ka sii jeestaa weli ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaami insaankii xumaa tilmaamahan foosha xun iska lahaa oo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qofka xun markii ilaahay uu u nicmeeyo ilaahay wuu ka sii jeestaa subxaanahu wa tacaala meeshii la rabay nicmadu inay sabab ugu noqoto iqbaal inuu ilaahay soo qaabilo inuu ilaahay ku shukriyo inuu daacada ku dadaalo nicmadii wuxuu la qaabilay kibir iyo daacadii ilaahayba inuu isaga tegey wana'aa wuuna fogaadaa bijaanibihi dhinaciisana wuu kala fogaadaa can daacati illaah waa sii fogaadaahoo daacada ilaahay uu ka sii fogaadaahoo kibir iyo isla weyni ayaa nicmadu ay ku beertaa nicmadu qofka muuminka ah waxay u sii siyaadisaa maxabbo iyo jacayl ilaahay uu sii jeclaado waxay u sii siyaadisaa daacada ilaahay inuu ku sii dadaalo laakiin haddii la arko qof nicmada ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sii siyaadsanaya kufri iyo kibir iyo inuu daacadii ilaahay ka sii jeesto waa midka ilaahay uu ka hadlaayo subxaanahu wa tacaala waidaa wakhtigii massahu insaankaa foosha xun asharu shartu haddii ay taabatana faduu ducaa'in tuugmo mid u saaxiibow ducadaasoo cariidin ee ballaaran markii wax yaroo shara ku dhaca sharta ma xamili karo walidaalika ilaahay wuxuu ka cabiray masi taabashaa laga cabiray taabasho sharta haddii wax yar ay taabato xanuun yar uu taabto dhibaato yar ay la soo daristo duco ballaaran ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu baryaa habeen iyo maalinba ducadaasuu ku jiraa markii loo nicmeeyana ilaahay waa ka sii jeestaa markii loo nicmeeyana rabbi waa ka sii jeestaa qul waxaad ku tiraahaa nabiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ara'aytum bal iiga warrama in kaana qur'aankanu min cindi illaah ilaahay agtiisa qur'aankani hadduu ka ahaaday uma markaa kabacdi kafartum aad ku kufriseen bihi qur'aankaas aad ku kufriseen oo xaqiiqadu sidaa ay tahay bal ka warrama waxa idin qabsan doona iyo halaagga idinku soo wajahan muxuu noqon doonaa
يعني عقل جود يا قرات كودا إلهي كل هذا سبحانه وتعالى وحلليه بل هذا القرآن كان أدليهين حق إلهي كما صعده أود إنكر إنسان أود بينين إنسان هذه السدة أدينكو بينين إنسان مويه سكة لقرآنكو والنقضة كورما وحقيقة بأيتها قرآنكو حق إلهي سبحانه وتعالى إنه كيمي وإلهي أسود جيي أدينكونا أتكو كفرسان سو أبالك أتسوغ إنسان معها إلهي عردي إيا عذاب كيس معها وحيد سوغاية قل وحد كتراها نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتم بالكور رما إن كان قرآن كانوا من عند الله إلهي أكتي سهدوك أهادي ثم مركز كبعد كفرتم به قرآن كي أتكو كفرسان من قف كيبا أضلوا كلوا مدبدا ممن دول حقي سيا كلوا مدبدا دول كاسو هو إساقو في شقاق خلاف دحديث هذا خلاف كاسو بعيد فقادي عن الحق حقي سكفقادي إلهي وحليه سبحانه وتعالى dadka noocaas oo kala ah yaa ka lumid badan wadada ay hayaan wadada ay ku socdaan waa ruux yaani khilaafka xaqa uu khilaafay uu la fogaaday khilaafkii xaqa uu khilaafay ayaa la fogaaday oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala diintii uu soo dejiyay iyo xaqiiba uu ka fogaaday qofkaas yaa ka lumid badan qof ka lumid badan ma jirto sanuriihim dadka noocaas waxaan tusi doonaa aayaatina aayadaheenan tusi doonaa uu ilaahay subxaanahu wa ta'ala aayadaha waxa loo jeedaa al-aayatul kawniya aayadaha kawniga ah ee ilaahay awoodiisa subxaanahu wa ta'ala tusinaya qofka iimaankiisa kordhinaya aayadahaas ayaan tusi doonaa haday ku cibro qaadanayaan fil afaaqi jihooyinka dhan ayaanu aayado kawniya ka tusi doonaa jihooyinka dhan ayaanu ka tusi doonaa aayado kawni ah afaaqdaas waxa loo jeedaa tusaale ahaan cirkii oo kale waxa ka buuxa aayado kawni ah qoraxdii dayixii xidigihii falagii daruurtii hawadii waxaas oo dhan ku jiro ilaahay awoodiisa tusinaya subxaanahu wa ta'ala ardadiina sidaas oo kale waxa ka buuxa aayado kawni ah oo qofka muuminka iimaankiisa ziyaadinaya haybada ilaahay uu ka haybaysanayo u kordhinaya sida badihii wabiyadii xayawaanaadka kala duwan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ardadan uu ku abuuray wa fi anfusihim nafafyaalkooda dhexdoodana waan ka tusin doonaa aayado ilaahay wuxuu leeyahay koonkaas iyo jihooyinka markii laga soo tago naftooda xataa dadka ugu filan markay fiiriyaan ay ka fahmi karaan ilaahay awoodiisa subxaanahu wa ta'ala iyo ilaahay haybadiisa qofka nafsadiisa ku cibro qaadan kara maxaa yeelay qofku wuxuu fiirinaa maraaxishii uu soo maray dhibac biyaha ilaahay uu ka keenay subxaanahu wa ta'ala markaasuu awoodan iyo caqligan iyo kartidan iyo firfircoonidan iyo hadalkan ayuu ilaahay gaarsiiyay subxaanahu wa ta'ala marka qof walbaba waxa cibro ugu filan naftiisa cibro ugu filan ilaahay insaanka subxaanahu wa ta'ala awoodaha ku jira ilaahay subxaanahu wa ta'ala insaanka uu dhexgeliyay ee dhamaantood tusinaya ilaahay awoodiisa tusaale ahaan waxa kamid ah insaankii hadda ilaahay wuxuu u sameeyay timo fara badan timo ku yaala timahaas qaar way ziyaadaan oo manaaficda insaanka ugu jira inay kordhaan oo ay ziyaadaan qaarna ma kordhayaan maxaa yeelay haddii kuwaas timahaas la kordhin lahaa oo la ziyaadin lahaa insaanka dararkiisa iyo dhibaatadiisa ayaa ku jirta tusaale ahaan tintan indhaha hadda yaani ku taala oo loo yaqaano al-ahdaab al-arba'a oo galalkan indhaha tinka ku taala tintaasi haday u kordhi lahayd sida tinta madaxu ay u kordhayso haday u ziyaadi lahayd insaanku wax ma arkeen xuma jeeda tintan indhaha baararkeeda ku taala haday u ziyaadi lahayd sida tinta madaxu ay u kordhayso kale insaanka wax ma arkeen indhuhu ka noqon lahaa waa ku dhigtoon lahaa sidaas oo kale waxaan arkaynaa qofka insaanka ah cijihiisa way ziyaadayaan way kordhayaan way kobcayaan walidaalika markuu ku dhigtoodo waa iska jara laakiin sida cijiyahaasi ay u kordhayaan ay u ziyaadayaan haddii ilkuhu ay ziyaadi lahaayeen ilkuhu haddii ziyaadi lahaayeen iyagana ziyaada ay ku socon lahayd ilaahay awoodiisa subxaanahu wa ta'ala jirkii bini aadamka qaybo ka midana ilaahay waa kobciyay qaybana ilaahay subxaanahu wa ta'ala ziyaadadii uu ka ilaaliyay maxaa yeelay ilaahay wuxuu ogahay ziyaadadaas qaybta kobcinta laga daayay in insaanka dhibaato ay u keenayso haddii ilkahaasi yaani sida cijiyaha ay u kobcayaan oo ay u ziyaadayaan
maalin walba iyo habeen walba iyo saacad walba haddii ilkahaasu ay kordhi lahaayeen oo ay dheeraan lahaayeen qof afka isku qabsadaa lama arkeen afka dhammaan ayaa kala tegi lahaa afka dhan ayaa kala tegi lahaa marka qof walba nafsadiisa markuu fiiriyo nafsadaadaaba kuugu filan cibro iyo inay ku tusiso ilaahay haybadiisa iyo awoodda ilaahay intay la eg tahay subxaanahu wa tacaala sanuriihim waanu tusin doonaa aayaatinaa aayadaheenna kowniga ah fil aafaaqi jihooyinkaanu ka tusin doonaa wa fii anfusihim dadka nafafyaalka dhexdoodana aayadaheennan ka tusin doonaa xataa intii aan aayadaha tusinaynaa yatabayana lahum dadka uu caddaanayo annahu qur'aankani alxaqu inuu xaq yahay aayadahaas kowniga markay fiiriyaan waxaa u soo baxaya qur'aankani inuu xaq yahay oo ilaahay xaggiisa uu ka yimid subxaanahu wa tacaala awalam yakfi birabbika rabbigaa kuma filla miyaa nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam mafcuulkiiyaa laga xadfay ficilkan mafcuulkiisii rabbidaasna waa faacilkii ba'dana lagu siyaadiyey faacilkii awalam yakfi birabbika asalkiisu wuxuu ahaa awalam yakfika adiga kuguma filla miyaa nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam birabbika rabbigaa kuma filla miyaa annahu rabbi calaa kulli shayin shay kasta shahiidun inuu ka marqaati yahay wax walba ilaahay inuu ka marqaati kacayo oo marqaati uu ka yahay intaas adiga kuguma filla miya yacni waa sabarsiin nabigeena calayhi salaatu wasalaam la sabarsiinayo waxaa la leeyahay haddii ay ku inkireen oo nebinimadaadii ay inkireen oo qur-aankii ay inkireen oo xaqii aad la timid ay beeniyeen sow rabbigaa kuguma filla inuu marqaati kuu yahay rabbigaasuu kuguma filla adiga qof ilaahay u marqaati kacayo maxaa ka maqan qof ilaahay leeyahay anaa kuu marqaati ah inaad xaq wadatid in ilaahay uu ku jecel yahay in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay rabbiba sidaas u marqaati kacayo intaas kuguma filla miyaa nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa rabbi leeyahay alaa hooy innahum kuwani mujrimiinta ah fii miryatin shaki dhexdiisayba ku jiraan shakiyaa dhinac walba ka hareereeyey min liqaa'i rabbihim rabbigooda la kulankiisana ay xataa ka shakisan yihiin rabbi ma lala kulmi doonaa qiyaama ma jiraa xisaab ma jiraa taasayba ku shakisan yihiin alaa hooy innahu ilaahay bikulli shayin wax walba muxiidun alla hareereeyey wey cilman xagga cilmiga iyo ogaalka ayuu wax walba ilaahay ku hareereeyey subxaanahu wa tacaala والله سبحانه وتعالى أعلم وجل